waxaan wanaagsan ku soo dhawaada qaybta labaad sheekada xiisaha badan dhimashan ka xiga inaan dib ku soo jeclaado. sheekadan waxaa qoray daalac daarshood waxaan idin socodsiin doonaa anigoo ah Gacal Ayman. sheekadan waxaad maalin walba Jimcaha kala socon kartaan channelka Gacal Ayman si aad u noqoto qofka ugu horeeya sheekadan hela. subscribe saar sidoo kale la wadaag asxaabtaada. qaybta labaad ee sheekada ayaana ku bilaabanaysaa sida tan. Anise waxaa ka tambadiyay jacaylka uu qabtay Ridwaan. way la fahmi weyday qorshaha sirta uu watay, waxayna ka dhigtay qorshihiisa guuldarro. haddii si degan ula hadli lahayd ama markii ogaatay inuu isagu yahay kadib ula jeli lahayd mid ka mid macallimiinteed inuu yahay, xiriirkooda xunbaa ka soo bixi lahaa, ballamo ayaana meel isla dhigi lahaa. Anise habeenkaasi waa la jirdilay. ciqaab adag ayay kala kulantay dhanka waalidkeed. dil kasta oo Anise loo geysto ma ahayn mid wax u dhiba jacaylkeeda, laakiin wuxuu noqon jiray mid ay ku sii jeclaato wiilka nolosheeda saameynta badan ku reebay. waxay la kulantay Anise cariir xagga nolosha uga yimid waalidkeed. waxaa la xadiday waqtiyada ay wax cunto maadaama waalidku u arko dharagta inay kibirka ka keentay gabadhooda. habeenkii cashada inuu cunto waa loo diiday. sidoo kale waxaa la xadiday xilliyada ay qolka ay jiifato ka soo baxdo. mar kasta ay qolka seexato dusha ayaa looga soo xiri jiray. guriga Anise degan yihiin waa guri aad u qurux badan, una dhisan sida dhismayaasha reer galbeedka oo kale, una camiran sida guryaha carabta oo kale. waa guri daaqadihiisa ay yihiin kuwo ka samaysan muraayado. habeenkii saqdi dhexe markii la gaaray, Anise way fikirtay. xaaladda ayaana ku cariirin ku noqotay. waxayna go'aansatay in ay isaga baxsato si lacan nolosheeda la soo darsay. waxayna jebisay muraayadaha gurigooda mid ka mida si ay halkaasi uga baxsato. waxaana Anise markii baxsanaysay dhibaato ka soo gaaray jajabka muraayadaha oo lugaha ka qalay. Anise waxaa ka go'an si lacan cusub ee nolosheeda ku soo kordhay inay mar un ka baxsato, laakiin hal dhib ayaa haysta oo ah inaysan iyaduba garanayn halkay ugu hagaagto ninka ay u silicsan tahay. intaysan ka boodin daaqadda, Anise waxay reebtay fariin u qorneed sida tan kuna socoto waalidkeed: hooyo iyo aabbo, waxaan ka baxsanayaa siliciina iyo xaasidnimadiina. waxaad tihiin cadowga noloshayda. waxaan raadsanayaa nololtiina ka wacan. waxaan ahay qof qaangaara oo kala garanaya waxa u fiican iyo waxa u daran. waxaan raadsanayaa jacaylkayga Ridwaan. haddii aan waayo Ridwaan, noloshayda laba mid ayay noqon doontaa: inaan isdilo iyo inaan guursado niman kale. waxaan idiin sheegayaa, haddii aan qofka ikhtiyaar loo siinin uusan jeclaan karin qofkii uu gaclooday, natiijadeedu waxay noqonaysaa inuu noloshiisa la baxsado. mana doonayo inaad dib idinkugu soo laabto, ayay tiri Anise fariinta ay u reebto waalidkeed. Anise iyadoo ordaysa waxaa arkay niman meel ku qaylaya oo degan isla xaafadday degan yihiin. way qabteen nimanka. waxay maagtay inay iska dhigto gabar aan la aqoonin, laakiin nimanka qaylay waxay ka sheekiyeen gabadha naftuuraysa, cagaheedan uu ka socdo waxoogaa dhiiga. waxay ku tiri, waxaan ka soo baxsaday niman kufsi ii geysan rabay. nimanka ma dareensana inuu dhalay gabadhan ninka xaafadda ugu taajirsan. haddii ay qaban lahaayeen, waa hubaal inay maalmo badan jaadkooda laga bixin lahaa. hadalka gabadha ayaysan rumaysteen. Anise waxaa la weydiiyey xaafadday degan tahay. waxay sheegatay xaafadda gabar isku fasal ahaan jireen dugsiga sare. nimankii mid ka mid ayaa sii sagootiyey amba sii dhoweeyey. Anise si nabada ayayna guriga saaxiibteed ku gargaraacday kuna gashay. halkaas ayayna iska seexatay. aroortii hore Anise way soo kacday. durbana waxay go'aansatay inay qorsheeda ka mari dhaliso. Anise waxay u soo kalaaday mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta Muqdisho, maadaama uu adeerkeed maamulo ka yahay shirkadaasi. adeerka weli maysan soo gaarin in Anise xalay soo dhuumatay oo tahay baxsad. Anise adeerkeed ayay ka codsatay lacag gaaraysa $500. si hagar la'aana ayuuna adeerka lacagta u siiyey maadaama lacag badan uu haystay. sidoo kale gabadha uu aad u jeclaa. Anise waxay go'aansatay inay degto mid ka mid a hoteelada ku yaalla suuqa Bakaaraha si ay jacaylkeeda u baadi goobto. intii xaaladdu ay ka cakiran tahayna halkaasi ugu sii noolaato. dhanka kale, waalidka Anise kuma baraarugsana in gabadhooda xalay saqdi dhexe baxsatay. albaabka qolkeeda ayay u garaacayaan, waxayna dhahayaan naa soo bax oo raashin cun. waalidka waxay u fahmeen Anise sababtay guriga ugu soo bixi laadahay inay weli xanaaqsan tahay ilaa subaxii laga gaaro. barqadii waalidka Anise shaki kumuu dhalan. mid ka mid a dadka dariska waxa u yimid guriga Anise. wuxuu wareystay inuu xalay u soo dhacay tuugii in kale. wuxuu yidhi, waxaan arkaa dhiig ilaa jidka daasan. marka waxaan isiri malaha reerkan xalay tuug ayaa u soo dhacay.
waalidka Anisa wuxuu jebiyey qolkii ay degneed gabadhooda markii shakiga uu galay. Sariirta ay jiifan jirtay waxay uga tageen warqad fariin ahaana oo taalla. Warqadda ayay akhriyeen, kadib ayayna bilaabeen inay boosteejo kastoo ka baxda gawaarida safarka gobollada dalka aadda loo dhiga ciidamo si halkaasi ay uga baadagoobaan gabadhooda una soo qabtaan. Anisa waxay wacatay shirkadda uu adeerkeed maamulaha ka yahay, waxaana ka qabtay taleefanka wiilka xilligaasi joogay qaybta caawinaadda amba lambarada. Way u barjalaacday, kadibna waxay wareysatay inuu siiyo lambarkii ugu dambeeyey ee gurigooda soo wacay. nasiib wanaag Anisa lambarka ayaa la siiyey. Markaan way faraxsan tahay. waxay heshay lambarka ay hadda ka hor uu ka soo wacay Ridwaan, laakiin su-aashu waxay tahay ma heli doontaa lambarkaasi. Anisa meel kasta waa laga raadiyey. waalidkeed wax kastoo suuragala wuu sameeyey oo lagu heli karay gabadhooda. waxay aaminsan yihiin in gabadhoodu uu la baxsaday ninka Ridwaan la yidhaahdo. aabba wuxuu ballan qaaday haddii mar uu nolosha lagu qabto wiilkaasi in la dili doono. aabba Anisa waxaa ku dhashay isagana fikir ah inuu shirkadda ka codsaday taleefonkii ugu dambeeyey soo wacay gurigooda, wuxuuna ka codsaday walaalkiisa oo maamulka shirkaddaasi. si fudud ayaana loo siiyey lambarka uu soo wacay xilligaasi. Anisa iyo aabeed waxay isla haystaan hal taleefon oo ah nambarkii hadda ka hor uu ka soo wacay Ridwaan. talow xaalku siduu noqon doonaa. Anisa waxay guda gashay inay wacdo taleefonkii ay ku tuhumaysay in laga helayo Ridwaan. taleefonku wuxuu noqday mid laga helay Ridwaan. meesha uu taleefonku ku jirana waa baqaar lagu keediyo raashinka. habeenkii waardiye ayuu ka yahay Ridwaan, maalintiina wuxuu ka yahay xamaali. Ridwaan waa nin sidaasi ku dabara noloshiisa. baqaarka wuxuu ku dhex yaallaa gudaha suuqa bakaaraha. Ridwaan markii loo sheegay in taleefon u yaallo durban uu qabtay filanwaa ayay ku noqotay. markii uu maqlay codka Anisa way wada ballameen, waxayna ku wada ballameen inay isku arkaan hoteelka ay ka degan tahay suuqa bakaaraha. waxayna ka codsatay qof aan isaga ahayn inuusan u sheegin, inkastoo ay diideen qolada hoteelka markuu tegey inay qolka labada qofood aan isqabin ay ku wada hadlaan amba wakhti iskula qaataan. waxaa loo ogolaaday inay bannaan ku sheekaystaan. waxaa bilowday in laisdhaafsado qofba xaaladda uu ku sugan yahay. jacayl ayaana lais xasuusiyey, waa laisku dul ooyey. Anisa ayaana dareenkeeda wuxuu ku cabirtay sidatan: inay yahow dartaa baan baxsad u hayo, laii kaa diidiyo, reerkaygu ku diidiyo, aniguna adigaan ku doonayaa, naftaan ku ogolaatee jacaylkaan i hayo. nolol dhuumaalaysi baan ku jira, adigaan dhibano kuu ahay, macaanuu mar un meeli geyso, silacaan ila soo darsay, adigaa iga bixin karaayee, ii noqo halaad bixiye noloshayda qanciya, xabiibi I love you ayay tiri. Ridwaan markiisa dareenkiisa wuxuu ku bilaabay sidatan: caashaqaan i hayo, caadil baa ka maraga, ciddii ku dhashay haddii dartay kuu deeriyeen, cadownimo kuu qaadeen, dil kula daba kaceen, cadaadisna la saaro, caashaqayna kuma haro, caawe inaan kuu noqdon ku ciltiraan doonayaa, cabsidaan ku hayso inaan kaa baabi'iyaan doonayaa, caadigama saarna inaan ku calfan doono xabiibti, ceyryaanta dusheenna maraysanee caawda aan haysanno, caashaqayna wuu udgoon badan yahay, macaanay I love you. laba isku xiise qabta wakhtiga ma dareemaan. waxay is arkeen iyagoo lagu dul addimay salaaddii maqrib. Ridwaan wuxuu ka habsaamay shaqadiisii galabtaas, sidoo kale wuxuu ka habsaamay baqaarka in lagu wareejiyo furihiisa, maadaama baqaarka uu ka yahay waardiye. wuxuu u cudur daartay gacalisidiisa Anisa, wuxuuna ku yidhi: qaaliyey, inaan kaa tago maan jecleen, meel baan mas-uul ka ahay oo waan ka habsaamay howshaydii. shaqa ayaa ay sugaysa, goormaan wada ballanna aan wakhti wada qaadanna. waxaa la ballamay in lays arko xilli kasta duurkii intii dadku qadada ku maqan yihiin. Ridwaan markii uu soo gaaray goobtiisa shaqada waxaa ku xanaaqay milkiilaha baqaarka. waxaa loo sheegay inay raadinayeen niman hubaysan oo qoryo wata. milkiilaha ayaa yidhi: aniga kuma difaaci karo, waxaan kaa codsan lahaa inaad isaga tagto baqaarkayga. nimankan hubaysan ee la sheegayo waa kuwa uu soo diray Anisa aabeed. waayo Anisa aabeed wuxuu helay taleefonka baqaarka ku jira. habeenkii Ridwaan wax uu sameeyey ayuu garan waayey. goobta uu joogo waa la soo ogaaday. haddii isaga la qabto wuxuu ka baqayaa in la cadaadiyo, kadibna gacalisidiisa Anisa uu sheego halkay joogto. Ridwaan wuxuu u cararay dhanka iyo hoteelkay ka degan tahay Anisa bakaaraha. wuxuu ku wargeliyey in maanta uu ka badbaaday dil. haddii uu joogi lahaa goobta shaqada, nolosha ayaana ku yaraatay. waxaa la go'aansaday in Muqdisho markaan laga baxsado xilli habeennima. la soco qaybta 3 sheekadan xiisaha badan. waxaadna ka heli kartaan janalka Gacal Ayman.